telefishinka military-ga ee Myanmar ayaa maanta oo Isniina baahiyay wararka sheegaya in military-ga dalkaasi ay la wareegeen xukunka muddo hal sano ah, halka wararku ay intaa ku darayaan in qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee dalku ay ku jirto Aung la xirey. Soo bandhiga ka tirsan TV-ga Mayawadi ee military-ga leeyahay ayaa ku dhawaaqay arrintaasi, waxaana uu soo qaatay qaybo ka mid ah dastuurka oo uu soo diyaariyay military-ga ka oo u ogolaanaya in military-gu ay la wareegaan xukunka xilliyada xaaladaha degdega ee qaran. Waxa uu sheegay in sababta la wareegidda ay qayb ka tahay dowladda oo ku fashilantay inay wax ka qabato sheegashada military-ga ee musuqmaasuqa codbixiyaasha doorashadii bishii November ee la soo dhaafay, iyo inay dowladda ku guuldareystay dib u dhigidda doorashada maadaama uu jiro cudurka coronavirus dhibna uu wato. Ku dhawaaqida ayaa waxay daba socotay maalmo walaac ay qabeen shacabka dalkaasi, taa oo ahayd halista inqilaab military iyo weliba diidmo military, waxaana ay timid subaxnimadii hore ee saaka arrintaasi xilli lagu waday in kalfadhiga cusub ee baarlamaanka ay yeeshaan. Xiritaanka siyaasiyiinta iyo weliba jarasta adeegyada isgaarsiinta ayaa ahaa calaamadihii ugu horreeyay ee qorshayaasha lagula wareegayo awoodda intii ay socotay. Qadka telefishinka iyo weliba internetka ee DAAWO ayaa lumay. Sunkai oo ah la taliye dawladeed waa hogaamiyaha ugu sarreeya qaranka iyo madaxweynaha dalka Mainti ayaa labaduba markii dambe la xiray saacadii hore waa bariga saaka. Xogta warka ayaa laga soo xigtay afhayeenka xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mainti. Warbixinta ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha dhexe ee xisbiga, xildhibaano iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada sidoo kale iyaguna xabsiga la dhigay. Mareykanka iyo weliba dowlado ay ka mid yihiin Australia ayaa soo saaray bayaano ay ku muujinayaan warbixino walaac leh, waxaana ay ku booriyeen military-ga Myanmar inay ixtiraamaan xukunka sharciga. Afhayeen u hadashay aqalka cad ee Mareykanka laguna magacaabo Jen Bazagi ayaa bayaankeeda waxay ku tiri Mareykanka uu ka naxay wararka sheegaya in military-ga Burma ay qaadeen tallaabooyin ay ku wiiqayaan kala guurka dimuqraadiyadda ee dalka oo ay ka mid tahay xariga la taliyaha gobolka Aung iyo weliba saraakiil sarsare oo rayid ah oo ku sugan Burma. Washington ayaa waxay sheegtay in madaxweyne Joe Biden la siiyay warbixin ku saabsan horumarka la soo sheegay ee markaa dalka ka jiray ka hor inqilaabka ka dhacay. Mareykanka waxa uu sidoo kale ka soo horjeedaa ay tiri isku day kasta oo lagu doonayo in lagu bedelo natiijada doorashadii dhaweyd ama lagu carqaladeeyo ku meelgaarka dimuqraadiyadda ee Myanmar, wuxuuna tallaabo ka qaadi doonaa kuwa mas'uulka ka ah ay tiri haddii tallaabooyinkan aan dib looga noqon. Burma oo iyadu ay adeegsatay ayay ku sheegtay inuu yahay magacii hore ee Myanmar. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Marise Payne ayaa dhankeeda ku baaqday in la sii daayo Sunkai iyo kuwa kale ee siyaasiyiinta la sheegay in la xiray. Waxaan si xoogan u taageersanahay ay tiri in si nabad ah loogu soo celiyo golaha shacbiga oo waafaqsan natiijada doorashada guud ahaan November 2020. Sharci dejiyaasha Myanmar ayaa waxay ahayd in maanta oo Isniina isugu yimaadaan caasimadda DAAWO si ay u yeeshaan kalfadhigii ugu horreeyay ee baarlamaanka tan iyo doorashada sanadkii hore. Sunkai oo 75 sano jir ayaa ilaa hadda ah siyaasiyadda ugu awoodda badan waddankaasi, waxaana ay noqotay hogaamiyaha waddanka kadib markii hoggaanka ay u haysay dagaal 10 sano socday oo ka dhan ah xukunka military-ga. Xisbiga Sunkai waxa uu qaatay 396 ka mid ah 476 kursi oo ka mid ah isku darka labada aqal ee hoose iyo kuwa sare ee baarlamaanka doorashadii dhacday bishii November, laakiin military-ga ayaa haysta 25% wadarta guud ee kuraasta sida ku xusan dastuurka military-ga ee la diyaariyay 2008 iyo dhowr jagooyin oo wasiiro muhiim ah sidoo kalena loo qoondeeyay military-ga na uu magacaabay.